maalin isniin ah 12 bisha Rabiicul Awwal Sayyidatu Aamina bint Wahab xaaskii Cabdullaahi bin Cabdulmuttalib waxa ay dhashay wiil qurux badan wajigiisana uu iftiimaayo. Waxaa soo baxday Tawbatul Aslamiyya adoontii Abu Lahab adeerkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo u soo cararaysa xagga iyo sayidkeedii Abu Lahab wajigeedana ay ka muuqato farxad iyo dhoola cadeyn. waxyar kadib waxay u timid sayigeedii iyadoo ugu bishaaraynaysa dhalashada wiilkan quruxda badan ee ku soo biiray qoyska. Waxaa iftiimay oo dhalaalay wejigii Abu Lahab waxa uuna ku yiri isagoo aad u faraxsan orod bax waxaa tahay xor. waxaa soo degdegay sidoo kale Cabdulmuttalib awowgii Nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo u soo cararayo gurigii wiilkiisa Cabdullaahi. kadibna waxa uu soo baxay isagoo xambaarsan wiilkii yaraa ee awowgu u ahaa ee reerka ku cusbaa. waxa uuna la galay Maka isagoo aad u faraxsan. waxaadba moodaa inuu sida adduunkii wixii nimco yaalay oo dhan. waxa uu bilaabay inuu xabadkiisa ku qabanayo si naxariis la weliba wejiga uu ka dhunkanayo uuna si dabacsan oo naxariis la u fiirinayo wiilka yar. waxa uuna u mahadceliyey oo ku shukriyey Allah subxaanahu wa ta'ala waa uuna u bariyay wiilkan inuu sharta iyo shaydaanka ka xijaabo. waxa uuna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku ilhaamiyey inuu wiilka yar ee awowgu u yahay uu u bixiyo Muhammad. qisadii nuujinta Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa yimid magaalada Maka islaamihii wax nuujin jiray ee qabiilada reer Bani Sacad si ay u qaadaan oo ay u wataan carruurta yararka si ay ugu soo nuujiyaan baadiyaha si ay u soo barbaaraan oo ay ugu soo barbaaraan baadiyahaas iyagoo ah kuwo xoog leh luuqadoodana ay tahay mid fasiix ah oo nadiif ah luuqad carabi ah oo awood lana ku hadli kara awoodana inay u dulqaataan dhibaatooyinka iyo dagaaladii ay ku jireen reer Quraysheed. mid kasta oo ka mid ah gabdhaha wax nuujiya waxa ay raadinaysay qoys taajir ah aabahoodna uu nool yahay si uu u siiyo maal fara badan. sidaas darteed naag walba oo wax nuujisa waa ay diiday Nabiga calayhi salaatu wasalaam in ay qaado sababtoo ah waxa uu ahaa agoon xoolo badanna ma lahayn reerka. waxaa qaadatay Sayyidatuna Xaliimatu Sacdiya sababtoo ah ma aysan helin cid kale oo khayrkiisa ah oo ay nuujiso. Xaliimatu Sacdiya iyo qoyskeedii markii ay qaadatay Nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib waxa ay galeen khayr iyo barako iyo nimco adduun. waqti uu cagaartay dhulkii kadib gaajo iyo macluul fara badan oo ay soo mareen. caanaha xoolaha qaasatan geerana waxa ay ahaayeen daad wararac kuwa meel walba iska yaalo. qisadii dilaacinta Nabiga calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa baadiyaha fog ee reer Bani Sacad isagoo oo jooga Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday arrin qariibka dhulkaas ama ku cusub ama ugub ku ah. waxaa soo baxay Muhammad maalin maalmaha ka mid ah si uu la ciyaaro wiilkii yaraa ee ay ahaayeen naas wadaagga ee ay dhashay Xaliimatu Sacdiya. iyagoo ku guda jira ciyaartoodii waxaa ku soo baxay laba nin si kadis ah waxayna soo aadeen dhankii Muhammad calayhi salaatu wasalaam waa ayna qabteen waxa ayna seexiyeen dhulka. kadibna waxa ay dilaaciyeen xabadkiisa. walaalkiisa ay naas wadaagga ahaayeen waxa uu ahaa mid fiirinayo arkaayana waxa dhacayo una dhow waqtigaas isaga ah. waa uu soo cararay isagoo u soo ordayo halkaas iyo dhankii hooyadii isagoo qaylinayo ooynaayana waxa uu uga xikooday oo uga sheekeeyey wixii dhacay. Xaliimatu Sacdiya way soo carartay wayna soo degdegtay iyadoo qaylinaysa wareersan sababtoo ah waxay ka baqaysay wiilkii reer Quraysheed ee amaanada ku ahaa ee agteeda joogay inuu dhib soo gaaro. laakiin arrin sidaa ka duwan ayay u timid. waxa ay heshay Maxamed oo taagan isagoo keligiisa. waxaa saameeyey wixii dhacay. waxaa guduutay wejigiisa ama casuus noqday midabkiisii. waxa ay ku soo dumtay xabadkeeda si naxariis leh waxayna u soo celisay guriga. kadib markii uu nastay oo ay wax siisay ayaa waxa ay weydiisay Xaliimatu Sacdiya wixii ku dhacay Maxamed iyadoo leh maxaa kugu dhacay Maxamedow. waxa uu bilaabay Nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu uga sheekeeyo wixii dhacay iyo sidii ay qisada ku dhacday. labada nin ee aan sheegnay ee Nabiga qabtay calayhi salaatu wasalaam waxa ay ahaayeen laba malag oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu samada ka soo diray si ay u dahiraan oo u nadiifiyaan qalbiga Nabiga calayhi salaatu wasalaam. sababtoo ah Nabiga waxa loo diyaarinayay arrin aad u weyn iyo fariin culus oo u baahan dulqaad. qalbiga Nabigana waxa ay ka saareen xiqdigii iyo xaasidnimada. Xaliimatu Sacdiya waxa ay u baqday Nabiga calayhi salaatu wasalaam ama wiilkii yaraa ee Muhammad waxayna u soo qaaday hooyadii oo joogta Maka. waxayna uga sheekaysay arrintii dhacday ee ku dhacday wiilkeeda waa Aamine. Sayyidatuna Aamina hooyadii suubanayd ee Nabiga calayhi salaatu wasalaam si kalsooni ku jirta waxa ay ugu su'aal celisay hadalkii Xaliimatu Sacdiya ma waxaad uga cabsatay shaydaan. Xaliimatu Sacdiya ayaa waxay ku jawaabtay haa waxaan uga cabsaday shaydaan. Sayyidatuna Aamina waxa ay ku tiri maya wallaahi isaga iyo shaydaan wax wada ah
ama wax rafiiqa ama wax saaxiibtinimo oo ka dhaxayn kara ma jiraan ama waddo uu shaydaan u soo mara wiilkayga maba jirto. waxay tiri wiilkayga waxa uu leeyahay arrin aad u weyn. markii aan uurkiisa qaaday waxaa iga soo baxay aniga nuurkaasoo iftiimiyey ilaa iyo qasriyadii shaam. uurka markii aan ku sidayna waxa uu ii ahaa mid aanan idhibin oo aanan ku rafaadin uurkiisa, aananba dareemin inaan uur leeyahay. xaliimatu sacdiya waxay u laabatay qoomkeedii kadib markii ay ka baxday cabsidii. waxa uuna joogay nabiga calayhi salaatu wasalaam ama wiilkii yaraa ee Muxamed xaliimatu sacdiya agteeda ilaa uu ka gaaray 5 sano. kadib waxaa loo soo celiyey asagoo 5 jir ah magaalada Maka oo ay joogeen ehelkiisa iyo hooyadii iyo reer tolkii. safarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo hooyadii Aamina ee magaalada Yathrib ama Madiinatul Munawwara. maalin maalmaha ka mid ah oo Aamina waxa ay ka baxday Makka waxayna u safartay Madiina iyada oo wadata wiilkeedii yaraa ee Muxamed. sidoo kale waxaa safarka ku weheliyey adoonteedii ama qaadimteedii Ummu Ayman iyagoo u jihaystay halkaas iyo Yathrib ama magaalada haatan loo yaqaan Madiina si ay u soo siyaartaan qabriga ninkeedii Cabdullaahi aabihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. ballan ay u qaaday darteed iyo si uu wiilkeeda u soo barto qabriga aabihii si uu hadhow u soo booqdo. sidoo kale si ay u soo barto reer abtigii iyo awowdii ee reer Bani Najjar oo deganaa halkaas iyo Madiina. waqtigaas iyada ah ee safarka ay aadayaan jawiga waxa uu ahaa mid aad u kulul. safarkan dheer ee ay galeen nabiga iyo hooyadii iyo qaadimkeedii waxa uu ahaa mid dhib badan oo rafaad badan. sayidatuna Aamina magaalada Madiina waxa ay joogtay muddo bil ah. soo noqodkeedii aad ayay u xanuunsatay waa ayna dhimatay hooyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam sayidatuna Aamina iyada oo ku jirta safarkeedii wadadana soo maraysa. waxayna ku dhimatay meel loo yaqaano ama magaceeda uu yahay Abwaa. halkaas ayaa lagu aasay Aamina. waxaa soo laabtay Ummu Ayman iyadoo u soo jihaysatay halkaas Maka waxaana la socday wiilkii yaraa ee Muxamed isagoo markaan ah agoon iyo rajay ay labadiisii waalidba dhinteen. waxa uu la noolaa awowgii Cabdulmuttalib. markaas ay hooyadii dhimanaysan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu jiray 6 sano oo keliya. kafaalaqaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee awowgii Cabdulmuttalib kadib markii ay dhimatay hooyadii Aamina nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu la noolaa oo kafaalo qaaday awowgii Cabdulmuttalib kaasoo qalbigiisa uga buuxay jacayl fara badan oo uu qabo wiilkiisa yar ee Muxamed. waxa uu ahaa Cabdulmuttalib mid aanan fariisanin meel ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa uu la fariisan jiray. xitaa meeshaas haddii odayaal dhaqameedka reer Qureysheed ay iskugu imaanayaan waxa uu ahaa sidoo kale mid kula fariista gogoshiisii oo taalay Kacbada agteeda. laakiin Cabdulmuttalib isna waxa u timid geeridii halkaas ayuuna ku dhintay. waqtiga uu dhimanayana nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu jiray 8 sano. dhimashadii Cabdulmuttalib kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa kafaalo qaaday oo la soo wareegay adeerkii Abu Taalib. Abu Taalib waxa uu iska ahaa mid hantiyarow ah laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tusay jacayl fara badan iyo xanaano. waliba waxa si aad u sii xanaaneyn jirtay xaaskiisii Faatima bint Asad. waxa uuna ku daray oo uu ka mid dhigay wiilashiisii. inkastoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa adeero badan oo hantina leh laakiin waxaa sharaf badnaa oo dabacsanaa Abu Taalib. aad ayuuna u jeclaa waxa uuna ugu yeeri jiray wiilkaygii Muxamed jacayl uu u qabo sida uu u adag yahay ee u daran yahay darteed. safarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu raacay adeerkii Abu Taalib dhulka Shaam. maalin maalmaha ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii Abu Taalib waxa ay u safreen halkaas iyo dhulka Shaam iyagoo la socdo qolo ganacsato ah. waqtigaas isaga ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu jiray 12 sano. safarkoodii waxa uu socdo waxa ay dhul sii maraanba waxa ay gaareen magaalo lagu magacaabo Basra. magaalada Basra waxa joogay nin raahib ah oo magaciisa la yiraahdo Buxayra. markii uu arkay Buxayra safarka waa uu soo baxay waxa uu aad u fiiriyay wajigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waliba si qoto dheer. kadibna Abu Taalib ayuu waxa uu ku yiri wiilkan qaraabo noocee ayaad u tahay? Abu Taalib ayaa ugu jawaab celiyay waa wiilkaygii. sababtoo ah saan horeyba u soo sheegnay Abu Taalib nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ugu yeeri jiray wiilkiisa jacayl uu u qabo daraadeed. Buxayra ayaa ku yiri ma ahan kan wiilkaagii mana haboona in wiilkan aabihiis u noolaada macquulna ma ahan taas. Abu Taalib ayaa ugu jawaab celiyay Buxayra waa wiilkii walaalkay oo waxaan u ahay adeer. Buxayra ayaa ugu jawaab celiyay aabihii maxaa uu sameeyay? Abu Taalib ayaa ku jawaabay waa uu dhintay isagoo weli caloosha hooyadii ku jira. Buxayra ayaa yiri run ayaad sheegtay waa runta waana xaqiiqo midaas.
wiilkan yar celi una celi magaaladiisii kana ilaali wiilkan yar inay arkaan yuhuudda wallaahi haddii ay arkaan waxa ay dhadhansiin doonaan shartooda ugu xun wiilkan yarka ah ee aad adeerka u tahay ee walaalkaa u dhalay waxa uu soo wadaa arrin weyn Abu Taalib waa uu la soo degdegay wiilkii yaraa isagoona uu la soo jihaystay halkaas iyo magaalada Makka